storage device qalabiyada kaydinta animedia ayaan qaadanayna. Storage device qalabiyada kaydintu is something waa wax that has kaas leh the ability awood u leh to read inuu wax soo aqriyo and also sidoo kale write information warbixin lagu qoro. Reading waa maxay aqrin is the process waa habka of transferring data xogta loo gudbiyo from iyadoo laga soo qaadayo storage medium kaydinta dhexe into la keenayo memory la keenayo. While halka writing qoraalku is the process u yahay hab of transferring data xogta loo soo gudbinayo from memory iyadoo laga soo qaaday memoryga to storage medium la kaydinayo kaydinta dhexe. There waxaa jira different types noocyo kala duwan of storage device oo qalab kaydina and each type nooc waliba store wuxuu kaydiyaa data xogta in different way hab kala duwan ayuu kaydiyaa. Input devices marka qalabyada input loo yaqaano. Input device qalabyada inputka is any hardware component waa isku dhis waliba hardware that allow you kaas ku ogolaanaya to enter data inaad xogta soo geliso and instructions iyo macluumaad inta computer kaaga. The various functions marka shaqooyinka kala duwan of input devices ay qabtaan qalabyada inputka waxay kala yihiin kow qodobka koowaad they accept data waxay aqbalaan xog and instructions iyo macluumaad from the user ka imaanaya ama soo gelinaya userka isticmaalaha. They convert these instructions waxay bedelaan macluumaadkani and data xogtani from human readable form hab bini'aadamku u aqrin karo to machine readable form hab machine ku aqri karo ay bedelaan. They supply waxay dabaqaan the converted instructions shaqooyinka maarata la bedelay and data xogta into the CPU ay u gudbiyaan for further processing si loogu sii sameeyo haweyn dheeraad ah.